السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقييمها لا السكاية كينا مانتا إن شاء الله تعالى برنامج كينو وكدوشة كقران هدي إلى هاي هدو بس الرجو وين سيدا عاد وجوابا ولبا علماء سبقتوا عادباتوين فربضان أيها كتيرة ولبا ورجع قبضنا مركي دمبي أي جورسدان أي قبضنا لبعض قبضوا أي نين هرسوا كلا تجين أي جورستون نين كله aanu haba yaraatee aanu u keenin wax biila ama wax mehera ama meherba ka taga biil iyo masruuf iyo marintoona assalaamu calaykum salaam ya qamariisha sister aan wax haba yaraatee biila aan u keensanin gabadhaas waxaan leeyahay marka nimanka meherkaas ma jira maadaama la oran jiray gabadha hadaan uu 6 bilood ninku biilan wayba ka furantaa ugu yaraan 6 bilood hadaanu biilin gabadhaasi ninkaas way ka furantaa hadaba anigu aqliyan waxaan arkay dad fara badan oo waliba aan u malaynay qurbaha waliba dadka jooga dadka Soomaaliya jooga wali ma dhawaana dhaamaan ya rag badan oo gabadha markay guursadaan ay nin hore soo kala tageen aan ay jiifsada aan xitaa shaqayn oo aan haba yaraatee wax bini ah gabadha u keenin waxaynu rabnaa marka maanta inaynu isweydiino insha Allah ta'ala meherkaasi ma jira hadaba ma yahay mise labada qof xaraan bay ku wada joogaan oo dhaws mise waynu iska qarsanaayo xaraantaas unba la isaga ilma dhalayaayo gabadhii lagu qabaya taas weeytaan isweydiinayno maanta meherkaasi ma yahay mid jira warda waa ku salaamay qalbiyay meherkaasi ma yahay mid jira dhamaan jamac idii ma salaamay karo xabad jamac waan idii salaamaya waxaan leeyahay assalaamu calaykum waan jeclaa asxaabtayda qaaliga ah macnaha ayaa wuxuu yahay barnaamijka caawa gabadha ninka dambe guursatay ee ninkeedii hore ay kala tageen ya la isma soo qabto Yasmin telefoonka kor ku qoran soo qabo WhatsApp-kayga la soo hadal sababtoo ah waa dhamaaday qabashadii Facebook ma jiro qabasho marka waxa weeye maadaama gabadhii haba yaraatee Soomaalidu waxay jeceshahay horta ay ka heshaan ayda iyo dagaalka iyo wax la caayo iyo qabiil la caayo iyo insha Allah anigu waxa ka sheekayn doon maayo wax allaale wixii ciid waa ku salaamay walaalkay ciid yare wax allaale wixii inaga ina anfacayo iyo gurigeena ayaynu ka wada hadlaynaa hadaba isagoo gabadha yasaya baan anigu arkay inuu yasayo sababtoo ah gabadha hore iyo wiilka marka ugu isugu horeysa isguursadaan waxa weeye waxay wada dhalaan bayaga dhalay ama ha u seexda ama uu u seexanin inkastoo isagaba aanay u fiicnayn waan ka qaaday saki isaga laftigiisa ay tahay inuu shaqaysto hadaba gabadha ninka hore ay kala tageen ee uu guursado ninka dambe badankoodu aanay u masruufin gabadhaas sidii tii koowaad maxaa keenay inay gabadho iyo wiilku midna gabadhii horena u biilo sidii yacni xaaskiisii tan kalena uu yaso oo aan wax biilaba qaarkood aanay siinin hadaba maadaama uu gabadhii wax biilaba u keenaynin oo aanu biilba jirin meherkaasi ma jiraa ilaa meherka waxaa la isku guursaday oo la isku guursaday in uu ninku biilo oo diinteenu ay noo sheegtay inuu ninku mas'uul ka yahay gabadha mariinkeeda iyo masruufkeedaba uu masruufka uu isagu diyaar u yahay oo uu markuu guursado uu gabadha isagu wax allaale waxay u baahan tahay uu siinayo balse Ilaahay baaba ku fududeeyay walaale ya oo dawlad baaba ku biishay adigu maxaa waxa iigu qosol badnayd gabadh baa waxay ugu tiri nin baan 10 sano isqabnay nin baan 10 sano isqabnay ninkaasi bay tiri haba yaraatee maalinu caruurta McDonald geeyay caruurta iyadu dhashay weeye uu McDonald geeyay ya oo 15 baana lacag kaga soo baxday laba caruur aan u malaynay adu 20 badhe mooyee wax allaale wax kale oo biila oo weligeeya ka dhadhaminay bay tiri ninkaas ma jirto marka caawa waxaynu rabnaa inaynu isweydiino gabadhan isaga mehersaday isagaana mas'uuliyadeedii qaaday Soomaad garan hadaba hadaanu gabadha wax biilaba siinin haba yaraatee gabadhaas uu ninkaas ku qabaa taynu isweydiinayna waliba ragga weeye su'aasha ciday ku socoto waa ragga walaal gabadha meher ma ku hayaa weeye gabadha ma qabtaa oo meher ma ku hayaa
يا هادي آدم بقبضي بيلانين أو هبا يراتي وح بيلا بآدم أوكينين قبضا ساعد كو قبتيد ما ربا أنو إنان وقادو طب بدانا وحان ربا إن أي فهمان إن أورجي الدمر بقى دينتو waxay tahay horta inkastoo diintii aad inoogu yaraatay oo fadad fara badan maandhood gabar halka hadda ku jirta video ay soo dirtay aan aad iyo aad uga naxay oo wiil la aasayay oo la dilay oo Germany lagu dilay oo isagoo mar dambe la ogaaday gaal ah waa tahay taa waynu soo noqon doonaa barnaamijkeenana wuxuu yahay gabadha wiilka dambe guursataa gabadha miyaanay biil ku lahayn gabadhaasi meherka uu mehersaday safaalid ma yahay meherka uu mehersaday faalid ma yahay suuq qofkana qabanaya salaam alaykum walaal magacaaga meesha ka soo hadlaysid wuu ka go'ay baan u maleynayaa qofkaas wuu ka go'ay marka waxa weeye muhiimadeena waxay tahay in ay tahay ninkaas ma qaba gabadha meher ma u hayaa gabadhaas meher ma u hayaa saamaba biile ya maba biilo shilinba ma soo geliyo haba yaraatay wax bini ah lacag la'aan dhibaato ma laha balse wax allaale wuxuu hayo gabadhaas uu guursaday xaq ma ku leedahay sida gabadha koowaad mise xaq ugu ma leh weeye waxaynu rabnaa inaynu isweydiino maanta oo aynu rabnaa inaynu ka wada hadalno dumarka ayaa ka daran oo nin aan biilanaynin oo u jiifa iyagii biilayaan iyagii wax siinayaan iyadii gaari u iibinayso iyadii saa u wadwada berrina markuu ka tago oo uu dhibaateeyo ay cabaadayso haddaba intaydaan cabaadin dumar oo ya ma qabo okay waa tahay sug qofkana ka qabanaya assalaamu calaykum walaalo magacaaga meesha ka soo hadlaysid qofkan waxaan u malaynayaa waxba ka qaldan iyo inuu ciyaar wada I don't know iska baloogi doonaa mar saddexaad haduu ka go'o waxa weeye walaalayaal qofkii raba inuu si fiican uga qayb qaato isagoo waxba dadka qashqashaadin ha soo hadlo min fadlag ya ma qaba Soomaa ha sababta diinteenu waxay leedahay gabadha hadaanu ninku wax biilaba u keenin oo aanu 6 bilood biilin ya inaanu qabinba oo meher ugu xirnayn haddaba familada inta badan qurbaha ku nool ayaa iyagu ah kuwa been iyo xaaraan ku wada nool nin aan qabin gabadh nin iska mehersaday maalin buu mehersaday gacanta uu buu dhigtay 21 October buu maray qalaas gabadhaas dambe uu ninku guursaday ee aanu biilani ma qabo ayaynu maqli jirnay ninkaas 6 bilood hadaanu gabadha biilan waa ka furantaa haddaba magaalada dadka ku nool qurbaha dadka ku nool ayaa badankoodu ragga gabadha markay nin hore kala tageen ay mar dambe guursato uu isagu guursado aan shilin haba yaraato u keenin haddaba su'aashu waxay tahay ilmahaas xaaraan ma yahay halka ka dhalanaya mise ma aha waa xaaraan anu saan u ogahay haday diinta gacan anigu aan qalad ka galayna hal iga raali ahaado balse diinteenu waxay sheegaysaa in ay qalad tahay gabadha waa inaad biishaa ama mid hore ha soo furo ama mid dambe ha soo furo walaale waxa weeye waa inaad gabadha biishaa Hello السلام عليكم عليكم السلام ماما صوتك ما الحمد لله والحمد لله magacaaga meesha ka soo hadlaysid وياسمين تبي waxaan ka soo hadlayaa Muqdisho Soomaaliya ما شاء الله barnaamijka wad la socotaan u malaynayaa diyaad wala socda ما شاء الله ha su'aasha ayaa waxay tahay gabadha markay nin hore kala tagaan oo uu nin dambe guursado ninkaasi hadaanu haba yaraatee biilanba oo wax santi aba aanu soo gelin gabadhaas ma qabaa mise ma qabo wadaas ninka uu qabaa laakiin way ku tahay su'aasha in qabitaanka iyo masruufka hayo waxaaba la yiri walaalo qabit gabadha 6 bilood haduu ninkaasi biilan oo masruufan inay ka furanto ayay diinteenu sheegtay haba yaraatay bilood aduusan wax ugu yaraan 6 biloodba balse 10 sano ay wada joogaan waligiina 1 bi uma keenin ama 1 cent ma qabo lama dhihi karo markaas lama dhihi karo sababtoo waxa lagu leeyahay oo inuu arki jirnay hadaanay markii hore wadaadadii hore qaldanayn 6 bilood gabadha hadaanu ninkaas wax mariin iyo masruuf toona aanu siinin inay ka furanto
صح وين ومركا وحكاس وحوي و lagu kala tagay weeye reerkaasi xaaraan bay inta dambe ku wada joogaan Soomaa صح waa tahay walaal gacal soo aad baad mahadsantahay maxaad u reebaysaa ragga saas ah aan caruurahooda yani gabadha iyo caruurta ay wadato aanu biilan waan wala jeedaa run ahaantii wax walba inaysan gabadhaasi aysan uusan qabin oo iska cadahay xuquuqdeedina uusan bixin صح marka waa waxaan ilahaa wala tali lahaa inay sidaas iska bedelaan in sha Allah mahadsanid walaal gacal soo aad baan kaaga mahad celinayaa magacaaga muxuu ahaa waad tir walaal muqdisho ka soo hadlaysaa waan arkay waad ii sheegtay yaasmiin walaal macaanaad baan ku salaamayaa aad baan kaaga mahad celinayaa sida quruxda badan aad uga soo qayb qaadatay insha Allah dadka dambeeyna soo qaban doonaa insha Allah هيا ولا القعالس إن شاء الله تعالى وطا ياسمين بهايد فرون مقدشو إن شاء الله ما أتكلم بركاز السوق السلام عليكم ما قاعد ولا علي هلكا كسو هاد ليست وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ما قاعد ولا علي ما قاعد ولا المعان فردوسو waxaad ka soo hadlaysaa anu malaynaya Germany ma iyo wadanka Uganda oo forna lambarkaaga Germany ama yaa marka mise lambar kale wadanka Uganda ha lambarkaas sareeyay baa ahaa Germany waa tahay maxaad barnaamijkood la socotaa anu malaynaya xabiibti waa la socodin badan maxaad ku darsan lahayd ma leedahay wiilku gabadhaas ma qabaa mise ma qabo ninka aan gabadhiisa haba yaraatee biilan gabadhuu qaba yacni xaaskiisa hadda waan qatra laba u kala saarayna marka hore sax ninka marka ugu horeyso naagta uu fiirsanayo xaqay ku yeelanayo inuu xaq siiyo waaye waa sax dib lahayd iyo masaarifteeda iyo waxay cuni lahayd iyo waxay xiran lahayd waa gart waa gart koowaad uu guursanayo macnaha xaq ku yeelana laakiin meher ahaan naagta wuu qabaa laakiin waxa laga rabaa markuu guursadaba inuu xaq siiyo mid labaad oo jirto waxay markuu guursadaba yuumeen markuu guursadaba maalinta meherka inuu xaq siiyo tahay kadib se intuu la nool yahay wax xaqay ku leedahay ma jirto weeye macnaha jirta inuu siyaasay waajib ku tahay inuu dayacna say kii qalad ku tahay waa gartay balse diinta ayaa waxay ku leedahay 6 bilood hadaadan ninku gabadha siin wax mariin iyo masruuf toona haba yaraatee meher u hayaa ma jirto way iska fasakhi kartaa صح laakiin markuu ugu horeysa laga yaabo inay labadooda macnaha ninkan wax la'aan ay ka tahay inuu isticmaalaan ka maya wax la'aan kama aho wax la'aanta la iskuma naco hadba kii haya ama shaqeeya ayaa wixiisa la cuni karaa waa nin jooga qurbe dal laga shaqeysta caafimaad qaba hadduu doono aanu shaqo tagayn hadduu doono shaqeeyo lacagtiisana jeebka gashada maan qadar waxaan dhihi lahaa ma taqaanaa naag inuu guursado aan aqla naag raalim ku tahay ama ku ahan mid ugu muhiimsan maya way ka murmayaan balse markay uu guursanayo isagu ku oran maayo haba yaraatee aanu ku biilan maayo waxna ku siin maayo gabadhii markay aragtay inay ku jirto arrintii ayaa dumar fara badan waxay ka baqaan in lay tiraado kii labaadna wuu furay ninkii labaad baa furay dhibaato walba iyo silac walbana waxay u qarsataa inaan mar labaad la furin muddo hadday wadi weydo se inta badan way ka tagaan ay iskaga tagaan iyadu marnaba habbi kuma aha okay midaan ku sheegaa mid hore ay furay in mid dambe ay furaa muhiimada maaha waxay tahay nin maadaama nin hore soo furay oo macnaha xaqeeda ay keeni weysay mar labaad inaan nin mas'uuliyadeeda gudanaynin inay guurstaaba waa qalad ma ku odhanayo xabiibtu ku odhan maayo ku masruufi maayo gudana maayo waxaa laga yaabaa kii hore inuu biili jiray balse dhibaatooyin fara badan ama nin ku kululaa ama nin dhibaatooyin kale ay ku qabtay uu ahaa balse kani adigu ninku markuu ku guursanayo daara cadcad buu kuu dhisayaa saad ogsoon tahay uu kugu sheekaynayaa malaayiin dahaba inuu ku siinayo kugu sheekaynayaa wuxuu kaaga inuu janno yar ku gelinayo buu kaaga dhigayaa nina ku odhan maayo dee jahanabaan kuu diraya صح وأنا والبورت عيسى ما شيء قاعد أنا والبورت بقيل من ما شيء قاعد لكن هدي ودارة أو معناها أنا جرين أو إيه بصي حقيقة دي مركز الصوتي ما هو واحد كواي
macnaha dan igu sii haynaysaa ma jirto xaqna macnaha ma fahmo يعني آمين waxaan ku leeyahay marka uu ku leeyahay daarahan ku leeyahay waa mid kule inuu janno ku gelin doono oo uu cirka ku geyn doono oo uu ku wadan doono naagtiisi uu adduunka ugu jeclaa ahaan doontid buu kuugu sheekaynayaa way iiga sheekayso maahan xaqiiqdii markaan u imaado wixii haddaan ka waaya ula sii joogaa maxay tahay dumar badan baa sidaada ahayn xabiibti oo iska baqayo odhanaya maantana waa la furay ninkii kalena way kala tageen dadku isku strong ma aha dad baa daciif ah haddaba gabdhahaas maxaad u reebaysaa fariin ah waxaan u sheegi lahaa yani mid hore hadduu ku furo mid labaad uu ku furo yani qalad maahan no problem ninkan beenta ku sheegayaad ujeedid oo beenta aad ku raacaysid waxay tahay yani labadiina inaad isburstiin ama iska qorneed wixii uu kuu sheegay haddii aad ka weysid inaad la sii joogto waa qalad marka koowaad mid kale araadid hadan aad jirtid qalad maahan yani calafkaagaa kuu geeyay wuxuu kuu sheegay waa runtaa waa runtaa insha allah koolka dambe waxaan jeclahay inuu wiil noqon doono xabiibti aad baan kaaga mahad celinayaa thank you very much reer ugandhana nagu salaam insha allah khayr bay noqonaysaa familada haye walaal gacalisa thank you very much xabiibti waa tahay waad arkayseen gabadhaasina waxay tiri ma aha inayba lasii joogto haba yaraatee assalaamu calaykum walaal barnaamijka waad la socotaa baan u malaynayaa يا ولد يا ولد السلام عليكم عليكم السلام حياتك في عنا الحمد لله حبيبي برنامجك وضع صعتان ملاينا يا ما شاء الله ها برنامجك وحوي يعني تعالى هنا لسعتي بلوجيسي ان قبلنا مركز نندم بجورسته aanu biilan haba yaraatee wax mariina ama masruufa aanu siinin ninkaasi ma qabaa gabadha mise ma qabo kor u qaad codka laakiin waxaa laga rabaa xaqeeda inuu siiyo hadduu siiba iskaga waa qalab waa runtaa dad badan baan ka tegayn oo ka baqa dumar fara badan ayaa ka baqa in la yiraahdo ninkii labaad bay ka tagtay iyo ninkii labaad baa furay marka maadaama uu marka hore ugu sheekaynayo jannaan ku gelinaya oo waa ku biilanaya horta marka hore kuugu sheekeeyo anay jannaan ku gelinaya nin waa iska ogtahay waa lasoo wada maray wuxuu ku leeyahay waa ku cadeena waa ku madoobina hadduu biri kugu soo qalacdo saa adi rabto ka weyso waa runtaa thank you maxaad u reebaysaa gabdhaha Soomaaliyeed ee dhibaatada noocaas ku jira gabdhaha dhibaato noocaas ku jira waxaan ku dhihi lahaa halkuu kaaga tago uga tag hadduu ku wanaajin laa tawada ka geli waka waa mahadsantahay xabiibti aad baan kaaga mahad celinaya maasha Allah wiilashana maxaad u reebaysaa fariina wiilashana waxaa u reebayaa gabdhaha waa walaalihiin waa hooyadiin waa u dhaxaysiin waa sax waa dhalaysiin ilaahay gabdhaha xaqooda hala ogaado aakhira loo socdaaye maasha Allah waa run si aanay gabdhaha iyaga u dayacmin oo sida ay saxariirta uga baxaan gabdhaha oo wiilka gabar xumaayo walaashiisa ka jeeban tahay gabadhiisa ka jeeban tahay hooyadiisa ka jeeban tahay waa runtaa aad iyo aad baad u mahadsantahay xabiibti thank you very much aad baan kaaga mahad celinaya welcome mama amiirad qadra mama thank you very much sida quruxda badan aad iga soo qayb qaadatay aad baan kaaga mahad celinaya ilaahay ha ka dhigo kuwii ku cumli qaata oo fahme nolosha waxay tahay haya xabiibti taasina waxay ahayd abaayo oo iyana kasoo hadlaysay xagga iyo Soomaaliya Uganda aan u malaynayaa waa si wiil baan qabanayaa haddii ilaahay yiraahdo waxa weeye maanta wiilasha lagu dhagan yahay ragga faraha badan ee seexday ee hurda ee gabdhaha aan biilanayn hello uu dhacaya yarkan insha Allah waa wiilan ka qaban waayay ayay ragga Soomaaliyeed waxaan leeyahay gabdhaha qabtaan ee aad biilan weydeen haddaadan biilan karin iskaga tag oo ha silcin oo ha saxariirin sababtoo ah waxa weeye waxay helaysaa mid barito iyadoo anfaca oo biilanaya assalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله. ما شاء الله وين مقعاق ولا لا يمشي كسو هاد ليسيد أمير قدر السلامي وعبد الله أمير عبد الله. ما شاء الله ما شاء الله حقيت شوكتا وحنا ملاينا يا قروي وياها لمبر كاركا ما شاء الله ما شاء الله وارك برنامجك واد لا سوتان ملاينا يا بس حاول والله سعد كودة كل مهرك واجر على كيس وعميشي مقل مقل معها تيلا صاري وإلهي صار ليك ركعة وانا عيب رونا هانتي من حاسي يكون مهرسنتي عم قبا صح إنه قضية مثل أي ساعة قتناطه صح كل أنت كجرت أنا عن رجال يعني كون طبعا إن شاء الله تعالى صح ما يلا قتنانين وضي دونت دولك قربها joogta oo biil qaadanaysa bay u baahan tahay hadarasaygeeda inuu shaqeeyo waxa laga yaabaa inay been dawladdu u sheegtay oo tiraahdo ninima qabo oo halkaasina been iyo ilmo lagu dhalo oo ilmihii yaani qariso ay gaaladu tiraahdo boyfriend baa iga dhalay isagoo aabihii joogo aanu wax biilaba siinin balse diinteena Cabdalla waxay noo sheegaysay 6 bilood gabadha hadaadan mariin iyo masruuf toona siinin inaanu meherkaasi jirin oo iska fasaxi kartid waan صح وقدر لكن mid baan ku sheegay dhibaatada jirta صح Yurub anigu waa joogo hore lama ku noolaa Ingiriiska ku noolaa markii ugu dambeysay waa صح way u badan yihiin runtii Soomaalida shaqo la'aanta macnaha inay shaqeyn ama shaqooyinka qaarkiisa ka faanaan صح separate waa wax jiray صح hadda kulli ma garan karo UK waxay ku dambeysay almost over 10 years hadmaan tagin صح waxaan filayaa in la intaas waxaad sheegaysaa waa sax barnaamijkan waa loo baahan yahay guul baan ku rajeynaya insha allah Cabdiraxmaan hawsha meesha ka sii wada insha allah tacaala insha allah haddii ilaahay yiraahdo ilaahay ha ka dhigo kuwiis fahmo ummadda Soomaaliyeed oo ismaqlo guryahooda iyo caruurahooda haysta waad aragtay gabdhihii waa dayacan yihiin intaa nin bay ka cabanayaan intaa nin bay ka qaylinayaan waxa weeye dhibaatooyin fara badan baa waliba ka jira qurbaha xagga caruurta iyo xagga raggaba dumarka laftigooda iyaga laftigooda yaa loo ceeb maydin qaladaad badan waa naga jira anaga laftiga iyagu marka bal raggaana maxaad u fariin u reeb dumarkaana bal fariin u reeb wallahi waa qadrayeen anigu talada soo jeedanay waxay tahay in la isku dulqaato in la is aamino in gacanta la qabsado in guriga la wada dhaqdo la wada qarsado tusaale haddii aan ku siiyo waxa weeye qurbaha waalidka jooga caruurtooda waxaad moodaa inayan lahayn صح caruurtii waa in xiriirka waalidka uu badiyaa for example caruurtii waxa weeye markaa 7 ama 8 iskuul aad geyso oo uu ku yimaado 3 iyo barka saacado badan buu ka maqan inta la siinaya hadana sariiraha lagu tuuraya intuu kala joogay intuu iskuulka jiro intuu iskuulka jira badan waxaan maqli jirnay ama si aan goobjoog u ahayn caruur fara badan la farxumeeyay iskuulaadka lagu farxumeeyay aad iyo aad waxaan arki jirnay macnaha caruur fariye ka baxay صح runtii marka ugu horeysa caruurta la saaxiibo taas insha Allah waxaan ku dhiirigelinayaa waalidiinta aabbaha waliba aabbaha hooyada feers waxaa marka hore inay luqadda barato waa runtaa arki jiray aniga hooyo macnaha lagu leeyahay dugsi sare kaga soo baxday Soomaaliya صح dagaaladii ka hor صح markay qurbaha tagteen aan luqadii aqoon caruurta uga tarjumaysa caruurta baa maamulaysa waa runtaa wax badan baan aragnay taa tan badan baa dhacday MCH la tagay MCH marka la tagay صح hooyada waxay leedahay UAD macnaha MCH kaas daawadaas UAD صح runtii waa wax aad looga murugoodo hooyooyinkana waxaan insha Allah waxaan ka rajeynayaa inay luqadda bartaan meel walba joogaan oo ay fahmaan waa صح tan kale muhiimkana waxa weeye caruurta marka ay guriga joogaan waa in luqadooda Soomaaliga ay ku hadlaan aad iyo aad oo kugu raacsanahay taas sababtoo haddeertaan Soomaaliya intii aan joogo waxaan arkay caruur fara badan oo la keenay oo aan af Soomaaliga aqoon erayba soo roganayna shiicka waxay nooga fiican yihiin Turkida ama Hindida ama Pakistan waxay nooga fiican yihiin wala socota luqadooda baraan luqadooda waxaad moodaa hadda in laga keenay Hindiya
anigu tusaale ahaan caruurta aan dhalay waa ku ciqaabi jiray xagga markaan joogay guriga hadday ku hadlaan macnaha luqadda English caruurta ciqaab baan maalinta marsiin jiray waa run Soomaali ku hadlaanba kuwayga aad baan u baray aad bay ugu hadlaanay marka hadda macnaha waxa weeye alxamdulillahi rabbil caalamiin aniga badshaan qaarkood ma sha Allah marka saas u rajaynayaa insha Allah qoysaska macnaha insha Allah is haystana أنا وذا جلوغنا الله وذا بركيه ما شاء الله أنت كلام مقلنا على سكوسو جديو أنت سكوسو عروتك إن شاء الله وتعالى الله سواه جاجيو بريق ورحسن الله كوسو دوسي إن شاء الله إن شاء الله عبد الله thank you very much ولكن أبا كوسو كسب كوبا إن شاء الله thank you very much indeed إن شاء الله ولكن علي thank you very much ما شاء الله كاسنا عبد الله هذا هذا الكيسين وثلاثة بعد مقليسين دمروا عروتها في سوماليا هلا برا إذن كوين اللقطة برتان وروحها دون تدبر برصة أو تشبصة بلينا المجال هذا يركم ركرتيت يا إنا دسكو يرد بركرتيت يا عادون كينا تكسر تتبع فيها قصر بارديها يا معنته واجي لساق حي وحد عضي إن ضدك ساق حي وكان يلي كان يمرك اللي يمي بعدك هذا قار وساق حي وحي مادين لكن يا سوريا ده عربي بقى لبرتي أنا قد جروب بدنا نكترنا مرك عرض جبر يروالد كي لصقطة حيد بوحنا من راشيا ولي جاي ما نو عرق ما نو مقال حكون شيء جايين واحد كستر يسكت حلو تشيكرا إنجليش كان إنه سومالي كسبرناي إنجليش كانوا حتى وصي عنا مكوب بلونا يحجاو كسعتي يحجيد جنت هاي الجوجاتي لو نتري شيء South Africa مياه هدلجا كين تري سكولة ده الجود جن تري قف كست أو سومالي تشوجي وحبا وقبلونا اللغة إنجليش كا بس اللغة كلها بيراتي يقاني اللغة عربية وضن كجبوتي وكندات كإيمان تري وضد كهدل تري يجونا فرنسيسكا بس اللغة هن كله إن هولنديس كله ليه هاي دينش كله ليه هاي روش كله ليه هاي وح الله على وحيل كم مقال لي هذا يراته مترت أنا وتينيجو يرو قبل يرى وحنا من راشيا قوية عربية تقانا إن سوريا بيد نوجسو ودي ويدنا ودي بس الروش كمر كانوا نبي هذا يراته وح الله على وحنا قرانا إنه يوم مجاعة يحجة كاتمي وينش سوق عربنا هنا الدكان ماذا حير هذا المقاسين سوق مركز سرنا هنا بوحنا صبينا وكحنا مقنا وينش إسكولة ده كدك تمجال ده بانو وحنا مركز أنا نقول هبلو يا هذا محل ده وحاس إن برنا ده محل يرهده بسش محل يرهده إن وحن ما نتيو نبانو قرنا وانو قرنا وحي بانو قعدنا سيدات بلود بانو تشوقنا يو لبا بلود والله وما قعدنا مركز أنا قرنيني أنا لقضي برناي إن ولالو تانكي محل يرهده إن إديسو دا كمان وحي يقول دريد إن حلا هي إن إسباسيبا إن إديسو دا وكالة كم هي تانكيو وإسباسيبا إن مجاعة مجاعة كاكتبيا سوفو وحيانا بدنا عند اللقطة بركة دبل لبض البلاد هراء حبة إنجليزية إن حبة صومالي إن حبة عربي بانوساسا نسوق عشيم جن والله بلي بريدو جوجين بركي دبل ترجمانا عنو كنا قلنا يو أنا قعدت كدبل سوقل وترجمي جرنا وأنا وضدك بركو يريال يعني اللقطة وحقوق بصلاة إن سيارة فضد ولقى يمي مركي لقى يمي ضدك قار جرماني بيسوقل اللقطة جرماني جاي برتين ولي قد ما يعرق ما يمقل شيء سنة نوكا قان لعادة جرماني مركز سومالي جوجي يا سمعت من هولنديسنا ولي جاي أري ولاي هي iyo waligay ma maqal noloshayda hal eeray oo holandiisa walaana ma maqal ruushna warkiisa badaaba luqadahaas oo dhan baynu soo baranay luqadahaas oo dhan baynu soo marnay waxa weeye mid walba oo la qabsato waad ka soo baxdo maanta oo kuwa afdheelish baa lagu hadlayaa afirish baa lagu hadlayaa ruushki baa lagu hadlayaa waxa lagu hadlayaa de wax kasta luqad adduunka aan la garanayn Chinese-ki baa lagu hadlayaa Soomaad garan yaa محاتر الدمر كهي شجري شعن محاتر الدمر كهي إسكهر مريان محات دمر كالإسكهر مرينا يا قلبي هلكا إن شاء الله بالصوفة صير مركب حنلاقي هاي الدمر كسوماليات إنا عرورتي لدين ترتنتور تواعب وحن أركي دور دمر وعروره حتى أونلاين كوحو قد ريان عروره يجي معموليان يجي ليه ورقدن هو يجي آخري يجي ليهين كالي أونلاين كوام حقف وين المهاجي رايو أي دير أول دبل ما عنده ذو كذي ينايل بقى هاد ما قانون ملايين وحساس هذا وحن تبى جارين
online waxay ka dalbaysa online cida qaara si loo galo aqoon dad baa bartay uu Facebook si loo soo galo live ka loo daaro live ka loo diro qaar baa xitaa aqoon ilaa hada live ka si loo diro warya hebel oo kala ii dir oranaya inagu markayna cawaanimada iska saarno dumaro oo iska saarno cilmi xumada luqad kasta waad baran kartaa wax kasta waad samayn kartaa wax allaale wuxuu ninku samayn karo ayaad samayn kartaa soo ma ogidin adduunka waad aragtay madaxweynaha noqdo way noqotay duuliye way noqotay engineer guri way noqotay dhakhtar way noqotay samaad garan marka waxa weeye hadaydan aan idinku hore isu wadin oo idinku is abayuusaysaan ya anaga hormarinayna caruurteena waa inaad caruurta ilmaha luqada bartaan oo ilmihii luqadahooda ugu sheekaysaan laakiin dadka badowda ah ayaa yiraahda luqada Soomaaliga ilmaha markuu ku hadla moodo reer baadiyanimo bay moodaan marka luqada ku hadla marka waxa weeye barnaamijkeena inuu soo yara noqonay ninka gabadha qaba ee mar labaadka guursada ee gabadhuna mar labaadkeeda guursatay ee aanu biilan ma qabaabay ahayd macnaha meesha aynu isugu nimid gabadha ma qaba diinteena ayaa waxay noo sheegtay 6 bilood hadaanu ninka ku masruufin oo mariini masruuf toona ku siinin ina haba yaraatee wax mehero isugu kiin haray hadaba jirin hadaba ragga ayaa ku andacooda dumar badan ayaa raba iyagu in la qariyo oo dawladda iska qariyaan waa tahay hadaba dawladda iska qarisay maad dayada waa wax siisid xitaa iyada waxba kuguma haysato dawladdi been bay ka sheegtay caruurtii been baa lagu dhalay ay xaaraan guri been iyo xeeraan lagu korinayo waa tahay qofkana insha Allah ka qaban doona assalaamu calaykum assalaamu calaykum walaale magacaaga Germany baad ka soo hadlay bay ila tahay walaal magacayga waxa weeye waxa la yiraahdaa Maxamed Cali Baalaha waddanka shaqo ka soo hadlaya marka hore aad baa maasanta wada barnaamijkan aad baan share gareeyay oo barnaamij runtii aad u fiican صح أنا وكمان ما نغير كان إسكاسي سورة البرنامج كقب قان كرا سوما. واد كقب قان كرتا ولا واد لسعتانو ملاينيا برنامج كوان سؤال شرته سؤال شو دكتانو ملاينيا مسوكو سؤالية. لو أخي لكن سبع المفاهيم وأنا أخي سبع عباد وأخي. أي أنا كوجو سؤالية ولا على واحد شراء ويل مرلبات جورسده أو قبل لصافر جورسده يوكره. gabadhii la soo furay haba yaraatee markuu guursado ninkaasi gabadhaas wax mariin iyo masruuf toona ma siiyo hadaba ninkaasi gabadha ma qaba mise ma qaba weey meesha waxa yaala walaal waxaan aaminsanahay waxa weeyaan masruufka waxay ku xiran tahay ninku hadda xaaladda uu ku sugan yahay hadduu yahay nin jecel xaaskiisa mar walba garab taagan aan cid kale ka daba keenayn waxa weeyaan iyada aaminsan laakiin wax la'aan ay jirto وأنا أمسناهاي إن وحويا وقفكاس وقبل داس وقبو وحلا أنا ما ترتو وأنا هدو دونش قيستا دولة دنا لقى قرية قبل دنا وحبي لسينين هدو دونا أنا ما بش قيستا لكن وأنا عافمات قبل وشقتها يجي كرا قبل دي أيوه حكون نقطة الموين وتيفا ثم تاسيد وقبا لكن ودولنيمو دين الإسلام هو قبا ولا دين تفاقا قانا هو قبا لكن ودولنيمو يدقنيمو ويان محمد دين الإسلام كأيا وحي تري قبضو هدين لح بلاد عن مريني مصروف تونا لسين مهركاسينو بريو آنو جرين أو إسكافور كارتو حدين تويتر لكن هو اسكو درتي لبدا هو اسكو درتي waxa weeyaan hadii midkood la helo midkood hadii la helo waxa weeyaan qofkaas xaaskiis uu yahay laakiin labadaasba hadii ayna jirin lixdaas bilood masruufna una siin una u iimaan una ka wardoonin wuu ka furan yahay diinaya marka la fiirsho laakiin hadii uu ninkii gabadhii mar walba ka wardoonayo ama uu la joogo ama xaaskiis ay tahay una laakiin masruuf una siin ama ha shaqaysto ama yuna shaqaysan wuu qabaa diinta laakiin mid doqonnimo ah jirta ودنين دريرة أو شخصان كريه أو حمالة كريه أو حاسكيس يعرف تسوي شخصان كريه وهم بقول بيع أو حوالي أنت صاد دقنيمة ودقنيمة حق زكاة المحلقية ما يدوينه كم مسكح بديسو أو شخصته حمالته يستجينا وقول قد أحفظيه. توا أنت بدن بقولي بقربها سين تشوفنا يدون الجرماني نتشرياني ونقول كن إنجليز كبولي واحد كنا دومر فرا بدن أو يوم شقايا نكينا وهردو هذا يراته نحرس diintu kuma oran yani naagtaasi naagun ha ku ahaato caruurta hadduu doono ka caawin maayo
wax naxariisa kuma haysato wax biila kuma haysato wax ixtiraama kuma haysato marka meherkaasi si u jiraya maya run ahaantii waxaa fiican marka dhanka dumarka weeyaan arrintu meesha iska qabsanada waayo gabadhu haddii ku adkayso inuu wiilkii uu wax taro waa horta qofku hadduu qalbi jecsan yahay oo xaaskiisa jecel yahay uu qofkiisa uu aada u korinayo iyada waa meel oo waxa weeya waa nin xaaskiisa iyo gabadhiisii jecel laakiin ninkii haddii u joogo maxaan cunaa maxaan cabbaa oo uu yahay hoy uu gabadhii ku nasanayo meel uu ku nasanayo ay tahay taasaa waxay tahay macni doqonnimo iyo miskiinimo dhinaca xaaska waxa weeyaan ka imaanaysa ha gabadha ayaa waxay ka baqaysaa ama ka warwaraysaa society-ga kale si aan loo odhan haddana waa la furay dumarka Soomaaliyeed ayaa furiinka labaad waliba ta koowaad iyadoo jirto ta labaad waxay xoog uga baqaan in la yiraahdo haddana waa la furay sida walba u duubtaan maxaad oran lahayd gabdhahaas waxaan oran lahaa jahilnimada u weyn oo ummadda Soomaaliyeed haysata waxa weeyaan gabadha iyada la furay waxa weeyaan sida lagu furay inuu ninku xumaa dumarku inta badan ma xumaa ragga xun marka laga hadlo xaqiiqda laga hadlo taasna waxay ka timi wanaagii iyo dhaqankii aynu dumarka anigu haddaan ragnahay oo dhaqmeynay ma naqaano oo marka xaqiiqda laga hadlo badanaaba ninkii gabadhii siduu u korkoolin lahaa xaaskiisii inuu cid u xigo waxaasoo dhan wuxuu kaga kalsoon yahayba dad asxaab yihiin ama qofka ay family dhow isku yihiin buu kaga kalsoon yahay marka waxa weeyaan taas horta waa mid xaggee ka timi marka la fiirsho sida waana wax la barto maahan runtii afrikaanka oo dhan baynu kala simannahay muslim iyo gaalaba waynu kala simannahay yani gabadha oo loo wanaagsanaado oo booskeeda laga soo baxo waa wax la barto waa dhaqan run ahaantii qofku uu baran karo aniga laftarkeygu waxa weeyaan waa qayb badan waa ka bartay taasi waa taas laakiin yani gabadhu inay ka fikirto qof kale muxuu oranayaa inta sabab qorimaa يعني سومالي وحنا قفكو نفتي سومنولا وحنا هبل وونا قون عدو كوا محو أنا marka taasi nolol lama dhaho oo qof noloshu ku jirto laakiin wax macnaa ma laha way sababta hadii qofkii qof kale uu nool yahay dibteeda leedahay waa runta maxamed aad baad u mahadsantahay ragga noocaas maxaad u reebaysaa oo fariina gabadha noocaasana maxaad u oran lahayd ale horta waxa weeyaan ninka ragga Soomaaliyeed anigu waan ka mid ahay waxa weeyaan doqonnimada waxa weeyaan ninka hadii ay ka timaado ninku wuxuu doqon si ahaan kara marka gabadhu ay doqon si noqoto waayo gabadhu waxa loo baahan yahay inay hadii ay aragto nin waxa weeyaan aan waxa weeyaan sida uu korkoonayso uu korkoolinayn waxa fiican in gabadhu iska joojiso waayo nin walba uu og yahay gabadhu hadii uu fiican tahay inuu ka maarmay marka haddii gabadhii ay barto walaal ninkii sidii gabadhii ugu wanaagsan yahay inuu ugu wanaagsanaado way ninkii ugu wanaagsanaya laakiin haddii gabadhii u aamusto wuxuu oranayaa qon baad heshay wax ka samayso marka waxaan u aan ragga Soomaaliyeed dumarku waxa weeyaan inaga u baahan 100% oo waxa weeyaan inaga kullada waliba marka qurbaha la fiirsho aad iyo aad bay noo caawiya waxaan oran lahaa inaan dimdaabiyada iyo doqonnimada iyo rafaadka iyo waxyaabaha dhaqanka aadka u liidaya aynu soo baranay ama aynu ku dhaqanno inuu dumar ka dayno anigu ku tan lahaa waa mahadsantahay maxamed thank you very much sida quruxda badan aad uga qayb qaadatay aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa walaalkay waxaan jecelahay inay nimankuna ku maqlayaan ayna ku cilmi qaadan doonaan insha Allah taala hadalkaaga iyo gabdhuhuba ayo walaalaha maasan ayo walaalaha thank you very much كاسنا وحها محمد أوكي محمد from Germany السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله قدره والسلام وعليكم السلام حبيبتي ما قاعدة الصومالية كسر هذا اللي سابيلته مقدشو هاي بدل سهام علينا ما شاء الله سهام برنامجك ولا سعودي لا تحي محاضرة الله حي هذه inkastoo gadaal kala qabsaday waxa maleynaa barnaamijka in laga hadlayay ragga dhibaatooyinka geystaan dumarka Soomaaliyeed markay kala tagaan may taas ma aha barnaamijku waxa weeye ninku markuu gabadh guursado kale gabadh ay nin hore soo kala tageen ee aanu biilan mariin iyo masruuftoona aanu siin gabadha ma qaba oo meherkii ma u hayaa mise meherkaasi ma jiro oo ninka markay kala tagaan ama ay ku wada joogo maya ninka dambe ay guursatay weeye wiil soo kala tagay wiil kale guursatay wiil yani biil ma siiyo wax biil oo siiyo ma jirto diinteenana waxayna tiri gabadha 6 bilood hadaan la biilin oo mariin iyo masruuftoona la siinin way ka furantaa ninkaas
marka adoo caqliya maxaa dhihi lahayd aad iyo aad aniga taasaa qabaa in ay ka furanto yani hadduu biilanin ilaa muddo sanad waa run waaba 6 bilood oo tawbiya baa la yiri gabadha 8 bilood gabadha waxay ugu tiri 10 sano uu qabay weligayna 15 baan buu noo sheegtaa oo $20 wallahi waa dhib weyn oo rag Soomaaliyeed hooyooyinkeena hal lahaye ani inkastoo aan gaarin abaraas laakiin mar walba inaan ka hadlo waan jeclahay rag Soomaaliyeed yani aabooyinkeena ma ahan dad toosan waxaa arkaysaa hooyo ilmaheeda 20 sano soo korisay oo dhahaysa weligeyga aabahooda ku shil iguma sheegan inuu anaa soo korsaday waa run aad iyo aad waa buuxaan marka aad ba maxaad u reebi lahayd gabdhaha wiilasha maxaa u reebi lahayd noocaasa wallahi hortare wiilasha xafirin u jirayaan inay ka waantoowaan waxyaabahaas yani xaquuq ay ku leedahay qofka dumarka oo qabo haddii ilmo u dhashana xaquuq loo jibaarmayso ay ku sax xabiibti ku soco xaquuq loo jibaarmaysa ay ku leedahay marka ilmo u hayso marka waxaa leeyahay ilaaha laga cabsado xaquuqda ilaaha dushooda saaraha ka soo baxaan haweenka Soomaaliyeed aad iyo aad u mahadsanyihiin waa run ilaahay ha soo hadeeya ayaan iyaguna leenahay ragga Soomaaliyeed ee gabdhaha dambe intay guursadaan aan wax biilaba siin haba yaraatay ee hadhowna la waan qabaa waa u ducaynayna iyagana insha Allah wayna madeena in ilaahay wadada sax ah sharciga maalinta malaaqra qabanayo waa runta xabiibti aad baad u mahadsantahay sida quruxda badan aad uga soo qayb qaadatay barnaamijka salaam xabiibti wata abaayo from Muqdisho waxay tiri inuu qabo u malayn maayo balse ragga ayaa iyagu waxay ku antaco ilhaan xaraga waan ku salaamay habar yar macaanaad baan ku salaamayaa waxay ku antacoonayaan in meherkaasi jiro iyadoo la yiri gabadha 6 bilood hadaadan qabin 6 bilood hadaadan biilan ama masruufan aan wax meheraba aanu ku haynin ayaynu maqli jirnay hase waxaa la yiri meherkii waa jiraa balse waxaan jirin mas'uuliyadii okay balse maadaama gabadhi iskaba fasakhi karto ninkii oo aanu meherkiiba meesha ka baxay taas macnaheedu waxaan u arkaa in aanu de meeshaasi wax meheraba jirin because hadduu meher jiro gabadhu isma fasakhi karto soo ma ogi gabadhu isma fasakhi karto haddii wax meheraba uu jiro haba yaraatee marka waxaan leeyahay gabdhaha Soomaaliyeed walaalayaal idinkuna dayaca faraha badan iska daaya ma aha ninku hadduu 10 nin hadday ku furto no problem Allah ayaa ku qadaray maalintaad xabkay biyaha ahayd intaad guursan lahayd intaad dhali lahayd intaad kala tagi lahaydeen waxba dumar oo hayeen kugu mashquulin tajaarkaaga ah ninku qabo waxa laga yaabaa sida caadan adigu qabin inay qabto 1,000 ah inay dhibaato dhan balse haddana waxa la soo ogaaday gabdhaha la qabo idinkuna taa hadhow dagaal la soo qaadinay waxa la soo ogaaday gabadha aan kaarkeeda jeebka lagu sidan gabadha aan iyadu la maamulin gabadha aan saan doono laga yeelin inaan la qabin ta la furo waa ta diiday dhibkaysan sida tan ninka aanu qabin ee ka tagtay waa ta diiday dhibaatada iyo abiyuuska ay ku jirtay ee ka dooratay inay banaanka ka joogto marka waxaan leeyahay ragga Soomaaliyeed gabdhuhu waa maradiina ma gabadha suuqa ordaysa gabadha qaawan aad waasheen gabadha dharka dhigatay gabadha dayacan ee idinku dayacadeen aakhirana waa la idin haystaa ifkana idinku abtirsanaysaa magaciinay wadataa waa gabadh Soomaaliyeed mid walba ajnabi wuxuu ku oranayaa day gabadha Soomaaliyeed ee waalan sababtoo ah nin baa soo waalay Soomaaliyeed garan inkastay ahaynba horta human yar oo adigoo kala ah ta human adigoo kala ah oo magta kaliya isdheertiin war waxa lagu yiri waxa weeye waa magta ayaad ku kala duwantiin adiyo ninku waxaba yaraata ilaahay agtiisa iyo if iyo aakhiro aad ku kala duwantihiin ma jirto haba yaraatee soo ma idin ogdin naa wax allaala wuxuu doono uu samayn kartaa cilmiga uu doono bartaad baran kartaa wuxuu rabo uu noqdaad noqon kartaa maxaa adiga ayada darbiyada ka ooyeysa kaa dhigay doqontii oo la caacleeda ilmihi yaraa life inta ku soo shido hadhowna life ka sare aqal xumada iyo jaahilnimada inta la eg xagay ka tin inta dam waa wadaad uu noolo waxa inagu jira qoloftii socoto naag ah oo u ego aan haba yaraatee wax kale oo nolola aan haysan
walaa wax internet bay wax ka taqaanaa walaa social media hay wax ka taqaanaa walaa cilmi kale taqaanaa walaa waxay garanaysaa haba yaraatee wax la yiraahdo isku qof kale insha Allah soo qabanaya hadii aan waayay haba yaraatee nolosha caruurteeda iyo iskuulka iyo programada iyo waxa ka jira baana haba yaraatee wax ay ka ogtahay jirinba ilmihii yaraabay leedahay hooyo ii fasir muxuu leeyahay ilmaha yar wuxuu ku oranayaa waa xumahayo waa dhacay iskuulka waa dab darana waa maya waxaad arkaysaa dad dam ah oo aad u jilicsan oo dumar ah aad u liito nolosha dunidaba aan waxaba yaraatee wax badan waa iska jaray ninkaas insha Allah uu ku soo noqon waayay marka waxaan leeyahay waa idinku dheeraaday baan idin leeyahay horta raali noqdo walaalayaal dumarka mid baan u reebayaa dumarka Soomaaliyeed mid baan u reebayaa inta dadaali kartid dadaal number 1 naftaada waa inaad jeclaataa naftaada markaad jeclaatid baad ninkana wadi kartaa caruurtana wadi kartaa laakiin naag iyada istayacdina adiga baa isnacay maxaad ugu dilaysaa ninku muxuu jeclaan waay ninku adaaba isnacay adigi baan israbin adigi baa nafaqada yar ee guriga soo gashay isagaad siinaysaa shilinka yar ee soo galaado jaakad yar oo baraan markii hore ahayd markii dambana noqotay subag la geliyay subag sixin miyaa la oran jiray subaga bari la geliyay oo baraan dufaysan u ekaatay sita lagu qolof ka gashay dayacan oo silicsan mara qurux badan aan ka sidan bahadhowna laga dhaqaaqaya marka sadafka kala jiidaysa xoolaha walaa marka hore ha bixinin hadaad bixisidna ha ku daba ordi oo ninka islaamiyada ku xagxagan nimanka inta xun baa rabaa marka inta la hadlo nimanka inta xun in wan badan oo wanaagsan baa jira dumarow naga idin qabay wanaagsan idinkuna si sharaf loo dhaqmo nimanka xumi ninka xumi horta ilaahay ku soo hadeeyaan leh ileen waxa loo maqli jiray waana iyo abuuriya horeeyay baa la yiri ilaahay horta qofka sidoo abuuray cidina kama bedeli karto cid ka bedeli karta haba yaraatee ma jirto balse waxaad isku daydaa waad maqlaysaa xantaada waxa dadku kugu xanta waad ogtahay in lagu yiri waad kulushahay in lagu yiri waa dabeecad xun yahay in lagu yiri bakhayl baa tahay nina xantii ma moogo inta markaad isku maqashid you have to change waa inaad bedeshaa waa inaad dabeecadaada wanaag yar ka dhigtaa waa inaad isku daydaa asmaaca asiyukaan aad qabow noqon kartid inta badan aad samaysid inaad isku daydid inaad dabeecadahaaga wax badan ka bedeshid waxa laga yaabaa marka hore qofku markuu qof la kulmayo oo guursanayo inaan wax badan dabeecadiisa ka aqoon balse markaad baratid dabeecadahaaga suuqa aad ka maqashay ilaa nin walba xantiisa uu yaqaan walaalayaal waa la isgaranayaa niman yahow waa la isgaranayaa xantaada marka suuqa ka maqashid waa inaad isbedeshaa wixii lagugu xamaanay waa inaad iska bedeshaa soo maad fahmin gabdhahana waxaan leeyahay walaalayaal ninka idin fiican haysta hadduu idin hagaajiyana hagaajiya hadduu idin xumeeyana adigoon caayin adigoon habaarin oon dhibaataynin walaal iskaga tag maxaad social media idin taagay maxaad la barooranaysaan maxaad la balanbalaysaan assalaamu calaykum hello walaalo waxaan u malaynayaa garowgaad kasoo hadlaysaa magacaaga alxamdulilah wallah magacigu waa yaasir axmed maxamed yaasir waa gartay yaasir waxaan u malaynayaa barnaamijka waad la socotaa wallahi hadda inay igu xisaabtanaan lahayd waxaan ka hadlaynaa maasha allah waa yahay barnaamijka ayaa wuxuu yahay gabadha ay ninka hore kala tagaan ee ninka dambe ay guursato oon ula dhaqmin sidii nin gabadh uu qabo ay tahay ama aanu wax mariin iyo masruuf toona aanu siin gabadha maadaama mariin iyo masruuf toona siinin diintuna ayna tiri 6 bilood hadaanu ku mariin iyo masruuf ku siinin waad iska fasakhi kartaa meherkaasi ma jira mise ma jiro hal case baa laga hadlaaya mise gabadh oo dhan iyo nin oo dhan baa laga hadlaaya oo guursaday gabadh noocaasta waa nin iyo nin oo dhan niman badan baa jiro hadda rag isku mid maaha kuwa noocaas aynu ka hadlaynaa mid baa madaxa saarsada iyo 10 garoobood ah oo 10 isbood ku nooca haysta ka noocaas aynu ka hadlaynaa noocaas hadii waxa isu keenaya waa marashiyo masruuf sooma hadii la waayo meesh maxay yalba waa waxba rag badan baa waxay ku andacoonayaan inuu meherkii jiro laakiin uu mas'uuliyadiisa gabay waxaynu maqli jirnay mas'uuliyadiisa waa gabay waxay u tagaysaa iyada baxkabad sharci baa jira islaamku
qofka ayuu og sharciga ay tahay baa haddana la rabaa in la maro sharci nidaam ah waa run marba in la dhaho waxaas waa dhacday ima siiyo adigu qofka magaalada galo lama rabo waa garta waxaa la rabaa maadaama meherku yahay meher islaam in dad diinta yaqaan ama maxkamadaha maxalliga ah ama maxkamadaha dowladda loo tago arrinta lagala u ishirto ma garatay aad iyo aad markii maxkamadda u sheegto maxkamadda qofka warqadda ay qoraysaa waxay leeyahay kasoo jawaab arrimaha waa garta abtu laba mid bay noqotaa marka waa sax aw dadka inuu sidiisii sii ahaado iyo inuu isbedelo soo maaha waa sidaa waaba labadaaba hadduu sidiisii sii ahaado maxkamadda go-aanka qaadanaysa isla markiiba automatically maasha allah waa sax hadduu laakiin isbedelo oo talada maxkamadda iyo xukunka maxkamaddu waa xukumaysa xataa ma aha baryo waxa saa waa in laga helaa sharcigu waa saas maasha allah haddii marka kusoo bixi waayo de maxkamadda automatically go-aanka qaadanaysa waa sax maasha allah aad iyo aad baad waxaa ka asla inay meesha dacwad ay timaado intaasan qofkaanu banaan ismarin waa run isagu intuu iska dhaqaaqo aanu wadaad isaga tegin oo odhan waxba layma siiyo aan la iska furin waa inuu sharciyan u maraa furiinkiisana sharciyan u mara loo yaraa ninka la dhaha kasoo jawaab sameysaa iyo saa ama ninkaas uu gabadha waqti haddii bay maxkamadda qoranaysaa waqtiga hadduu furin waayo automatically maxkamadda go-aan uga qaadanaysaa waka maxkamadda waxay u sheegaysaa inuu gabadha uu qabayo hadduu qabayana uu biilanayo oo sharciga intaa iyo waxaa lagu leeyahay haddii kalena ay gabadhaasi ninkaas way iska furi karto oo ka tegi karto dacwadda soo noqoto maraad yani laga barahayo waa sax marmar bay noqotaa oo marka koowaad uu yiraahdo waan biilanayaa mar labaad ay haddana isku soo noqdaan oo mar saddexaadka lagu kadib waxba meesha kasoo noqon meesha kasoo socon aad iyo aad markaasaa go-aan la qaadanaya marka waa taa yaasi ragga noocaasa fariin u reeb maxaad odhan lahayd ragga noocaas niyo hadda horta raggu iskuma jiraan dabeecadiigana dadku waa sidee banaan baa labada walaalaada kala duwan aad iyo aad haddana dadka qaybtood ama balwad ha noqoto ama wax kaleba ka awood bata iyo haddana fiicnaa iyagu ma garatay aad iyo aad kiisaskan ama dumarkan mas-uuliyadooda ha qaadanina haddaydan walaalayaalow aydan wax xaq iyo waajibkiina saaran aynan kasoo baxayn waa runtaa maasha allah inuu banaanka ka istaago marka hore hadduu is-og yahay ba shaqana qof walba aad iyo aad waxaaba soo batayba dambi ka qabtaa naf kale dambi ha ka gelin waxaaba soo batayba kuwa garoobgaadka ahoo wiilal yaryaroo hadda waxaad arkaysaa walaalo kula gabaroo baanu doonaynaa guri dhisan ha soo galo ma xumee wixii uu haystay hadduu ku biilanayo waxba kaaga dhibayso ninka yar baan ku leeyahay weligii guursan ee gabadha weyn ee guri degan ee already dhisan ee aan waxba isleh arooska waxba kaaga bixi maayo badan iyo gurigiisa iyo qarash maxaad oran lahayd kaana mid kula eg doono horta taa waxaa ka horeysa maxaa sababay dee mas-uuliyadooda bay ka wada cararayaan waxa sababaan idin sheegaya marka qofka bini aadamka ah hadduu uu arko meel dagan ama yani doonada meesha uga barata macalin macruuf ugu baktida dumar baa waxay sameeyaan qaabka iyagu la wareega qofka kadibna isaga xataa macawiista iyo dharku xiranayo ka fekera oo dushooda saarsada dumarkaasa marka waxay bareen ragga dhaqanka noocaasa dhalinyarada ahayd qaybtood haddii dumarku hadday fikir ahaan go-aansadaan wixii xaq loogu leeyahay inay gutaan wixayse xaq ulahayn aysan dusha saaran dee nin dhayo iskuma soo lugooyeenba soo maa waa runta maya ragga ninkii naagtu sheegaya marka ninka dhaqankaa barta horumar male ninka dhaqankaa bartaa tiri oo dhaqankaada fariin maxaa dhehira soo maa ka dhalinyarada oo dhaqankaa barta mustaqbal sii dheer ma yeesho waa run halka maadaama uu guriga dan kusoo galay dantu dhaqsay u dhamaataa waana la kala gudboodaya waa bahdilmaya waa sax muddo wada joogi mas-uuliyad wuxuu baranaya la qabsanaya mas-uuliyad la-aanta mas-uul baa laga yahay isagii baa mas-uul laga noqday noqto waa run walba wuxuu doonaya oo ku jiraya qof mas-uul ka noqdo la rabaa
ومسؤولية دي سلا وريكتا وسيد خوف من كاسو حسوب بدا اوتوماتيكلي سيدي قبل وي صح لو مر بيادو تنين مسؤول كنوه نك دغل كبرتا خوفتا ku ku dameeya qof mas'uul ka noqdo inuu doono hadda dumar mas'uul ka noqdo inuu doono marka dumarka waxa la dumar oo joojiya ragana mas'uulka ka noqonaysa dumar oo joojiya la yaraano xalay mustaqbalkiina damac ku ciyaarina malkaas ma shaqaysto mustaqbal dama sameeyo sho wuxuu noqdaa maskaxa laga qabsada ma garatay waa gartay bahdil bay ku tahay aniga dumara haddaan nin eego nin aan anoo nin ah inaan naag hoos fadhiyo oon naag ibiisho ama imaamusho anigu haddaan nin ahay ma yeeleen aad bay ila fool xumaan lahayd inaan anigiina meesha caasho ka noqdo iyana cali ka noqoto sida banaanba waa la sii markaa kaliya waa la sii qabsanaysaa mar walba adaa caasho noqonayo wuxuu doonayaa caasho noqonayo wuxuu doonayaa wax mas'uul ka noqdo waa run iyana cali bay noqonaysaa isna caasho noqonayaa dheh ما شاء الله ويا ياسر عاد بقى سيدا قروحدا بدن كليركا ah aad ugu sheegtay gabdhaha iyo wiilashaba aad iyo aad baan kaaga mahad celinaya yaasir reer garowna nagu wada salaan waa tahay kaasina wuxuu ahaa yaasir waad maqlayseen dumaro wuxuu idin yiri joojiya mas'uulka aad qaadaysaan waa runtii balaaye inagu inaga bilaaban horta ma jirto horta dhibaato walba inaga marka hore sii create garayna inaga sii dhisna inaga jaranjarooyinka u sii dhisna laynugu soo korayo jaranjarada laynugu soo korayo laynugu soo gaadhayo dhibaatadeeda inaga sii dhisna waa run waa tahay insha Allah koolkana ugu dambeyn doona barnaamijka assalaamu calaykum walaal magacaaga iyo meesha ka soo hadlaysid assalaamu calaykum waa Uganda malani ha walaalo السلام عليكم عليك السلام مقعاقة ولا لماشا كسو هادليس عايقة وحا ليرادا سعيد محمد سعيد كسو دوا برنامج كسعيد برنامج كمان لا سعودتي نسوان كوكسو عليا سؤاش شي كسو علي وحاوية ويلي قباد هوري اما قور سو مري ويلكو اما قور سو مرين او قور سداي قبار قور هورا سو مرتاي markuu guursanayayna wuxuu ku mehersaday inuu isagu de gabadha qabayo mas'uulka ahaan doono balse habeenkii meherka kadib aanu gabadha wax mariin ee masruuf oo toona siinin meherkaasi ma jiraa mise ma jiro meherku gabadha mehersaday ma garanaysaa hadduu gabadha mehersaday waa labay noqonaysaa ma garanaysaa laba miskood bay noqonaysaa sax horta meherku waa jira ma garatay صح hadduu gabadha markaa dilo wax reerkiisii weeye hadduu la kulmay ma garanaysaa maxaa tiri hadduu dilo gabadhi ma mehersan wuu mehersan laba loo kala qaadayaa haye haddii uu gabadha lawaxaaskiisii weeye haddii ay wada kulmeen macnaha ijtimaacu ka dhacay ma garanaysaa wuuba qabaa sanaduuba la joogaayo haye meherkii waa lagu wada leeyahay ma garata wuxuu doona ahaadee waa garta haddii se aan ula kulmin haddaan ula kulmina meher kala bar baa lagu su-aasha si kale aad u fahantay walaalan kugu celiyo insha Allah kama hadlayno waadna talking about meherka gabadhii haddaanu wax mariin iyo masruufa tiyoona siinin ma qabaa mise ma qaba weeye meher iyo isu tag iyo way wada degan yihiin way wada nool yihiin way wada joogaan waxa laga yaabaa gabadhay ku tiraan 10 sano ay qabay lacag 10 baan oo baan noloshaydana ka arkay marka maadaama diintu ina tiri gabadha haddaan 6 bilood wax mariina iyo masruufa toona la siinin way furantaa adiga aqligaaga ma herkaasi ma jiraan ninkaasi aan haba yaraatay gabadhaas uu qabo aan shilin ku darsan والله ولا تاك ما جاوب كرو يقرها لنقوة وشريعة نقولنا وحنا قرني باك جاوب كلام وقتي ما حسنت ولا وعارفون ولا ما حسنت قف كنت قرني ما هي إنه كجوابه ودمبي وخلد وشريعة إسلام بين هاي وإسلام بين هاي وعارفون ها ما يوحينه مقلي أضاد مقشي واد مقشانو ملاينا يا إن قبضة حدي ومريني مصروف سينا تونا سينا أنا بسكفر كرتون صح والله أباريا ما كسر الله بس حلو دور هذي أيوة ولا سعيد تانك يا أدبر كاجا ما هاد علني ولا المعان ما شاء الله إن شاء الله كل كنا ينو قدام بين دونا أصحابته وين سلام يا مول بعد دونك كتشوكتان
waad maqlayseen wiilkii ka horreeyay wiilkan Saciid Yaasir la lahaa wuxuu jiri gabadhaas hadaan waxba siinin maxkamad bay u tagaysaa maxkamadda u sheegaysaa maxkamadda xukumaysan ninkii hadduu isbedelana wakaa maasha Allah haddaanu isbedelina uu yiri gabadha de ma biilanayo anu waxna ma siinayo waa ka furmaysaa gabadha waa laga furayaa marka dumarku yaana isu bahdilin oo isu baabi'in wuxuu kaloo sheegay Yaasir in gabdhuhu iyagu la wareegeen mas'uuliyadii ragga marka waxa inoo dhiman oo kaliya inaynu inaguna samaysano diin aynu ku mehersano nimankii de inta kaliya inoo hadhay markii aynu ya walaal insha Allah cabdi waa weydiin doonaa waxaynu maqli jirnay un baynu insha Allah hadda ka hadlaynaa oo gabadhaas inay ka furmayso hadaadan 6 bilood wax mariin iyo masruufa toona siin sheekaygu waa maqan yahay maanta anu malaynayaa mar kale insha Allah idin soo qaban doonaa arinta waa inaynu si fiican horta isu fahansiino oo wixii shucaac iyo qalad ay nagu jira aynu iska qabana insha Allah taala hadii aynu diinta si qaldan ugu dhaqmayno oo guurkii si qaldan u wadana aynu saxno insha Allah hadii aynu yani u saxan yahayna aynu si hagaajino wixii naga qaldan ee dhiman hadaba dumarka la wareegaya ragga mas'uuliyadooda ninkii inta iyagu isagu mehersado ma subaxiina iyadu la wareegaysa mas'uuliyadda iyadu qabayso oo iyadu cali noqonaysa isna caasho noqonayo horta hal la joojiyo ninku waa inuu mas'uuliyadda isagu haystaa waa inuu gabadha isagu biilaa waa inuu gabadha iyada masruufkeedii mariinkeeda u keenaa oo uu yahay nin isagu halkaa ka muuqdo oo nin oo reerka maamula gabadhuna ay ahaato gabadhii hooyadii guriga role modelkii guriga caruurta iyo wax walba baraysay wax dhaqanka iyo diinta iyo wax kasta labadaba maxal odayga balse haddaynu inagii nimankii guursanayno oo inagii keenayno oo inagii biilayno oo inagii de maxaad la ooyeysaan walaala marka haddaba laba mid waa inaad soo gashaan dumarow inaad oohinta daysaan iyo inaad ragga mas'uuliyadooda u daysaan labadaas soo gala idinkaa qaba oo ragga biila oo maamula oo u taliya hadhowna markuu kaa tago wuxuu kaa raacaya kamid kala deeyara oo de maamulayso biilayso adigu hadaadan gaaro u gadaysa adigu intaadan siinin usii kordhinaysa adigu isagu waa nin uu wareegayo ayuuta ku jira ayuuta qarsoon ayuuta bini-aadankiibu ayuuta ka gelaya ninkan ma fahanta adiguna ma fahmaysid maalin walba mid walba iyadaa nimankii maamusha iyadaa dhaqda iyadaa biisha iyadaa mariinkiisii iyo masruufkiisiiba la wareegtay marka inaa idinka mariinkiini masruufkiiniba aad la wareegtaan iyo in idinka mariinkiini masruufkiina lala wareego waxa weeye de kala doorta marka waxaa idin leeyahay wixii dambi aan halkaa ka galayna ka raali noqdo walaalayaal wixii wanaag ahna insha Allah waynu isugu ducaynaynaa familadeena in Ilaahay ka dhigo familo qurux badan oo Ilaahay isu keeno isku soo dhaweeyo dhibaatooyinka iyo rafaadka iyo waxyaalaha ku dhex jirana Ilaahay ka saaro ragga dhan ma aha horta marka la leeyahay insha Allah ragga dhan markii aan leeyahay ma aha rag oo dhan horta waa inaad fahantaa macnaha hadalku ma aha rag markii lagu leeyahay rag oo dhan dad baa raggiiba waxay la soo qaylinayaan markiiba rag oo dhan ma aha de yaaba ku yiri adduunka hadaad ku aragto walaal rag dhan oo xun rag wada xun ma jira inta xun baynu ka hadlaynaa waa in la isfahmo niman wanaagsan oo sharaf leh oo caruurahooda biisha oo reerahooda dhaqda oo guryahooda insha Allah wiilkan aan ugu dambaysiinaya hadii Ilaahayna walaalayn kastoo barnaamijkii ka baxay haddana insha Allah Faransa ka soo hadlaysaa way la tahay bisa Djibouti barnaamijka ka baxay maybay waa ku soco xabadan insha Allah koolkana ugu dambayn doona barnaamijku la socotaan u malaynaya magacaaga meesha ka soo hadlaysid horta walaal adiga mahadsan iyo rafaafay xogaa haye magacaaga horta meesha ka soo hadlaysid magacayga Xasan Faransa lambarkan gartay okay Xasan barnaamijka ayaa wuxuu yahay rag badan ayaa jira oo gabadha markay guursadaan xitaa haday tiisa koowaad tahay iyo hadii ay tahay tii labaad uu guursado oo gabadhuna nin hore soo furay uu gabadha uuna biilin oo wax mariina iyo masruuftoona aanu siin diintuna ina tiri 6 bilood ugu yaraan hadaanu ku biilin oo ku masruufin waad iska fasikhi kartaa meherkaasi ma jira mise ma jiro weeye barnaamijka maanta hello
وأنا ملاينا حسن وكجوعي أو كجوعي بأنا ملاينا حسن أو كجوعي إن شاء الله مركب حلايا ولا عليال أنت حسن برنامج كأنه كسر جبين دونا إن هدي إلهي يرهدو دمر كويدين كنا مسؤولية دالة وريجة سانس كداية idinku mas'uuliyadiina idinku caashadiina iska ahaadaysna caligiisa u daaya haddii kala soo isaga caasho noqdo iyadiina adigiina aad cali noqotay dee birita caashi markay kaa cararto walaalo ha barooranin oo dib adiguna caashaha u noqonin isagoo caligiisiibuu ku noqonayaa uu kaa tegay soo maad fahmin adiguse caashadii baad adna kusoo noqoto caligii waad ka baxday markaasaad isogaatay inaad caasho ahayd ilaa marka hore cali baad ismoodaysa oo cirkaad maraysay marka walaalayaal dhibaato walba inaga horta sii salaxna sii dhisna sii wadna ilaa inta ay inaga inala degayso ama aynu cabaadka joojin dumaro ama aynu mas'uuliyadda ragga u dayno raggana biilaysaa balaayo idin qaadataye eed gaariyada u iibinaysaa ee ayuutada intaad u gashay adoon dhar ka gadan oon kaba ka gadan oon dushaada ka maydhin oo kareemo ka iibsan yaa aad isaga ku shubaysid ama daa ama cabaadka daa labadaa mid baan leeyahay dumarku ha soo galeen raggana waxaan leeyahay rag baa alla kaa dhigay walaalo waa inta xun dee anagu rag oo dhan ka hadli mayna idinkuna nimano ha wada xanaaqine inta xun waxaan leeyahay nin baa alla kaa dhigay ninkiina mas-uul baa alla saaray mas-uuliyadaada walaal ha iska xayuubay marka adigoo cali ahaad caasho noqotid daciif aad noodka hoos fadhiisatid oo naagi ku biisho oo naagi ku maamusho oo naagi miyeeday raganimadaadii meeday sharaftaadii meeday karaamadaadii shaarkiiba intaad saa u qaaday biskaas yaan adin waxba lagaa sugin baad caasho u noqotay waxba yaan lagaa sugin baad caasho u noqoto shaarkir ninka waxaad usoo gelisay iyadii diraceedina waad gashatay soo maad fahmin ama dee saa u wareego wifes ayuuto baad noqoteen naagihii baad ayuuto kaga jirtaan tanaa maanta dhar kuu gaday biil bay ku siisay waa ku dhargisay uurkiibaa intaa kula ekaaday waad carartay mid kalaad u tagtay gaari bay kuu gaday holiday bay kuu kaxaysay adduunya ku kaxaysay marka halkaas de ayuuto free baa ka socotaa soo ma idin fahmin adigu naaga ayuutada freega agal ma faham maxaa ku geliya adiga in lagu ayuutaysto maalin walba ayuuto free baa raggu iskaga jiraa nimankan xunxun ee naagaha hoos fadhiya marka wifes ayuuto yaa ayuutada naagaha ayuutada xaasaska baa halkaa ka dilaacday saasaa laydin ugaarsanayaa weligiin ayuutadaasaa laydinku wadayaa gurigan ayuutu ka galay dharkii ugu dambeeyaad u gelisay barifurnadii ugu fiicnaabaad u gaday kabuhu ugu quruxda badnaabaad u gaday way dhamaatay ayuutadii wuxuu arkay inuu ayuutadii halkaa ku go'day wuu baxay mid kale u tegay holiday baa loo kaxeeyey waa la waday waa loo labisay haddana quruxya maasha allah wuu ka tegay ayuutadii waxay aragtay inuu sii go-ayso oo la fahmay mid kale uu tagayaa gaarigii baa loo gadayaa uber baa laga dhigayaa wuu shaqaysanayaa halkaasuu jeebkiisa wixiisa ku gudaranayaa tii kale u tegayaa dee ayuutaa laydinkaga jiraaya ayuutada dee walaalo friiga ah weligiinba ku jira weligiinba waad ku jiri jirteen ya ayuutaad ku jirtaan ragow ayuuta ragga xumina ayuuta wifes la yiraahdo ay ku jiraan adiguna ayuutadii baad naagay noqotay waxaan idin leeyahay walaalayaal asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wixii qalad iyo dembi aan ku hadlay ilaahay ha iga cafiyo wixii qaldamay magaciisii bilaan halkaa uga jeedaa baan u malaynayaa waxaa weeye waa xabiib waa ku salaamaya xabiibti waxaan leeyahay ama dumar oo idinku caasha marna caasha ha noqonina marna cali ha noqonine ama caashadiina ahaada ragoo idinkuna ama caligiina ahaada ama caashadiina ahaada mid unu go-a marka waxaa idin leeyahay walaalayaal iga raali ahaada wixii qaladaan galayna ka raali ahaada wixii dembi aan galayna ilaahay ha iga cafiyo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بلنتين واه إذن كو عاشدينا رجعوا إذن علينا هذا يلا استبمر نوال بمجلس هايست أنا كان عاشد يد نوداي إذن كان علينا هذا لكن الدين لا استبمر أنا علي نقول إذا أنا عشان نقطان دوينا دول كافر جورج كافر إذا أنا جورج كشقيسان ومسحدان ما أنتوا دن هوريجنا أيوته جيلوا ولا عليه دمر كان مساكين تاب دقرتوا ذي قل الشيء أنت مدوق كتاعن جري نقطة جري أوسي سعودة بلوجة يا سي أيوت لعبت هذيك هو جوريين
walaal ilaahay ka cabso miyaadan ka nixin gabadhaadii oo dayacan halkaas sii socoto fool xuno mara yaroo shuka ahoo madoobo kaba kala jeedo oo xagga dambe ka dhamaaday sidata oo fool xun gabadhaad ka tagtay miyaydaan idinku gabdhihiina ku xaragoonin annagu waxaanu jecelnahay ninku inuu qurux badan yaho labisan yahay gabadh fool xun oo kala jeejeedo garay noqotay waa garay noqotay oo isbedelaysa jirkeedii isbedelay because of you wixii baa ayuutaad ka gashay adigii bay ku siiso aday kugu fangaraysa marka walaalayaal ha laysu naxariisto in ilaahay guryaheena iyo caruurteena inoo naxariisto innagana inoo ceebastiro derbe orodka iyo naagahan waashee social mediaha ka barooranayana ilaahay soo yareeyo waxaa idin leeyahay ragow nolosha dumarka idinka idinku xidhan tahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu